fog iyo iga soo kaxeeyeen waxay keeneen meel dhexe marmar waxaan siraahdaa ma waxay ku heshiiyeen baa oo la yiri rag kala maqnaada ninkan odayga ah madaxweynaha 4 sano wuxuu ku qaran waayay ummad u sheegay qof iyo cod hal mar ma oran karno hal ugu noqdo mid dadbane annaga soo dhaweeyay idinku na suga arintaas waxay u baahan tahay baarid maxaa yeelay markii aan xaq isku tagnay waxaan yiri walaalayaalow qol gala idinku xal ii keena xal runtii ummadda Soomaaliyeed u qalmi kara oo wanaagsan oo macquul ah ii keena waxay iga maqnaayeen 7 saacadood way ugu soo noqdeen waxay ii keeneen heshiiskii ka soo baxay Samareeb 3 runtii waana ka naxay waana ku farxay oo waxaan ogahay labada kale oo maqan inay meel fog ka hadlayaan marka waxaan yiri intaan orod ku qaado bal wax kale la sameeyay maadeen waxa laga yaabaa inay istaraatiijiya waxay ka ilaalinayaan nuclear inay hal mar ugu tuuraan nuclear option waxaan yiri see ummadda uga gadaa hawshan ileen 4 sano waxaan iibinaynay aan ummadda u sheegaynay shuruuc u sameeynay ummadda Soomaaliyeed aan maalin iyo habeen baan u sheegaynay in dalku uu gali doono qof iyo cod waxay yiraahdeen rag kale meesha joogaan ma ogide intaan qaado oo ummadaada intaan u sheeg alxamdulillah wixina dhex marayna ummadda waa u sheegay waxayna ilaahay ummaddu inay intaas ku qanceen hadda marka imaanshaha halkan ay yimaadeen sidoo kale aan sameeyay waxaan yiri qoltaga shantiina fariista ii keena wax ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacdo oo sharci iyo dastuur ku dhisan aniga raggaan moodaa inay la socdeen iyaga ugu horeeyaba taasa wax ugu abuurtay shaki u baahan in la baaro waxay ii keeneen wixii aan soo saarnay ilaa iyagu ay iga xishoonayeen saddexdii hore labadaas nin yay rabeen inuu hadlaan idinku calaa ay xaal hawshaasi runtii waxay ku dhamaatay wixii soo baxay waxaan idin sheegayaa marka sababta looga tanaasulay ama aniga aan u tanaasulay qof iyo cod aan uga tanaasulay qof iyo cod runtii muddan ka shaqeeyeen waa xaqiiqa inkastoo ay soo kala dhex gashay xaalado adag oo COVID-19 ku jiro iyo baarlamaanka oo dhowr jeer fasaxyo qaatay waxa la isku hayo waxay tahay doorashada qof iyo codka ah sharci